dhalasho ahaan ma uu ahayn carab, wuxuu ka soo haajiray dalkiisa hooyo. muu dhammaysan waxbarashadii dugsiga, dalal kala duwan ayuu isu maray. nolol maalmeedkiisa wuxuu kala soo bixi jiray hagaajinta saacadaha. tiraba dhowr goor ayaa jeelka la dhigay, balse diinta islaamka wuxuu u qabtay lama soo koobi karo, gaar ahaan cilmiga xadiiska. waa Moxamed Naasirudiin Albani. ku soo dhowaada taariikh kooban oo ku saabsan Sheekh Naasirudiin Albani. أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح ابن نجاتي ابن آدم الأشقدوري الألباني wuxuu dhashay 1333 hijriyada oo ku beegan 1914 wuxuuna ku dhashay magaalada Ashqudra ee dalka Jarmalka. Albani aabihii wuxuu shareecada islaamka ku soo bartay magaalada Istanbul, wuxuuna ku noqday wadankiisa isagoo noqday mid ka mid ah culimada ugu waaweyn madhabka Xanafiga ee dalkaasi. balse waxa uu u guuray Dimashq isaga iyo qoyskiisu. Albanina wuu la socday. Sheekh Albani wuxuu dugsigiisii hoose ka dhameeyey madrasatul iscaaf alkhayri ee Dimashq, darajo sare ayuuna ku dhammaystay. balse Albani aabihii isaga oo eegaya ra'yiga uu ka qabo waxbarashada dugsiga, wuxuu go'aansaday inaanu wiilkiisa Albani sii wadanin waxbarashada dugsiga, wuxuuna u dejiyey manhaj cilmiyeed tifatiran, kaas oo uu ku baray qur-aanka, tajwiidka, naxwaha, sarfiga iyo fiqiga xanafiga ah. Albani wuxuu awood u yeeshay inuu ku dhammeeyo xifdiga qur-aanka kariimka gacanta aabihii Nuux, iyo sidoo kale kutub kale oo u badnaa fiqi. sidoo kale waxa uu bartay kutubta luqadda iyo balaaqada. Albani sidoo kale waxa uu aabihii ka bartay hagaajinta saacadaha, wuxuuna ku noqday mid aad ugu wanaagsan hagaajinta saacadaha. iyada ayaanu nolol maalmeedkiisa kala soo bixi jiray, una fudaydisay inuu waqti u helo akhriska iyo waxbarashada, iyo weliba tagitaankiisii Shaam ee barashada Carabiga iyo culumta diiniga ah oo uu ka soo akhrisanayo masaadirtoodii asalka ahayd. iyada oo ay jirto in waalidkii uu la rabay inuu dheegto oo uu taqliito madhabka Xanafiga ah, ugana degayay inuu ku mashquulo cilmiga axaadiista, haddana Albani wuxuu bilaabay barashada iyo baadhista cilmiga xadiiska iyo sunnada, wuxuuna bartay xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam isaga oo 20 jir ah. Sheekh Albani shaqadii ugu horreysay ee uu ka qabtay cilmiga axaadiista waxa uu ahaa kitaabka la yidhaahdo Al-Muqni can Xamli al-Asfaar oo uu sameeyey takhriij iyo tacliiq. Sheekh Albani wuxuu caan ku noqday Dimashq ilaa ay maktabadda daahiriyada ee Dimashq ay siisay koobi ka mid ah furayaasha maktabadda, taasoo ay xilliga uu doono soo galo maktabadda, waxayna u raacisay qol u gaara oo maktabadda ka mid ah. Sheekh Albani wuxuu bilaabay alifidda kutubta. kitaabkii ugu horreeyey ee uu alifay waxa uu ahaa taxdiiru saajid min ittikhaadi alqubuuri masaajid. sheekhu muddo kadib waxa uu bilaabay bixinta duruus ku saabsan caqiidada, fiqiga, usuulka iyo xadiidka, waxaana casharadiisa iman jiray ardayda iyo macallimiinta jaamacadaha. waxaa intaa dheerayd oo uu sheekhu bilaabay u bixidda safarro dacwadeed oo uu ugu baxayo magaalooyinka kala duwan ee Suuriya iyo Urdun. wuxuu ijaaso ka helay Maxamed Raaqib ad-Dabaakh jaamacadda islaamka ee Madiina. waxay u dooratay inuu dhigo culumta axaadiidka muddo 3 sano ah. 1381
ilaa iyo 1383 intaa kadibna wuxuu ku noqday Dimashq. Sheekh Naasiruddiin Albani waxaa la xidhay tiraba 2 goor, sababtuna waxay ahayd inuu si xeel dheer uga fogaa siyaasadda. Markii dagaaladu dhaceenna, dowladda ayaa xal u aragtay in dhammaan dadka siyaasadda u xidhan la sii daayo, balse markii dagaaladu dheeraadeen, Albani jeelka ayaa lagu celiyey. 8 bilood ayuuna ku jiray, waxayna ahayd 1967. Sheekh Maxamed Naasiruddiin Albani kutubtiisa ugu caansan waxaa ka mid ah silsilatul axaadiis as-saxiixa iyo silsilatul axaadiis ad-daciifa. Sheekh Maxamed Naasiruddiin Albani wuxuu wax ka dhigay jaamacado kala duwan, qaar badanna waqtiga ayaa u saamixi waayey oo duruufo ayaa ka soo kala dhex galay. Sheekh Maxamed Naasiruddiin Albani waxa uu dhintay maalin Sabti ah 22 Jumaada al-Aakhir 1420 oo ku beegan 2 Oktoobar 1999, wuxuuna ku dhintay magaalada Cumaan ee caasimadda Urdun.